dadweynaha ku dhaqan magaalada Inaguuxa ee magaalo xuduudeeda ayaa cabasho baahsan ka muujiyay shirkadda Telesom khadka internetka oo isagu daciif ah oo ay sheegeen inuu 2G yahay isla markaasina ay doonayaan 4G iyo 3G in looga dhigo. haddaba cabashada dadkaasi waxaa ka mid ahaa hadaladoodii sida tan. waa kan Khadar Xasan Ismaaciil oo faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay cabashadoodaasi. Assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. shirkadda Telesom waxaan ku codsanaynaa taawarka Inaguuxa oo 2G ah in ay noo dhigto 3G maadaama oo khadkii aan isticmaali kari weynay oo waqti uu noo shaqayn waayay. markaa waxaan ku codsanaynaa shirkadda sida ugu dhaqsaha badan in 3G noo dhigto. runtii waxaan ka cabanaynaa khadka internetka oo isagu daciif nagu ah. markaa shirkadda Telesom waa in ay khadkaasi ay noo hagaajisaa oo degdeg ay wax noogu qabataa maadaama bishii barakaysaneed ee Ramadaan lagu jiro. baaqan waxaan u diraynaa shirkadda Telesom waa inay si degdeg ah baaqaasi ugu soo jawaabtaa. dadweynaha ku nool magaalada xuduudeeda Inaguuxa ayaa shirkadda Somtel iyo Telesom ugu baaqay in ay si degdeg ah khadkaasi ay u soo gaarsiiyaan magaaladaasi oo dhinaca khadku aanu si fiican u shaqaynaynin. haddaba labada shirkadood ee isgaarsiinta Somtel iyo Telesom ayay baaq u direen